هذا كله وهو هذا البدن ميالو لكن سودويتم إياه محمد إياه نمو محمد الله نفس الفكرة أنه كلمة لهذا الناس كنهاي وحال إكسسمه سومالي لنا وفقه قادتي مشروع قلمينتا إياه نوضينتا إلهوي إكسسمه فقه قادتي أما ذلك هاتشوغ أما كيف هاتشوغ أما دور سنتنا هاتشوغ أما دور سنتنا هاتشوغ أهلي أبقى نقوم حدقنا وحانا لنا جزاكم الله خير مشروع قلمينتا يوم مشروع iyo nabadaynta ceelaf weyn way kala xoog weynaayeen waxa warwar weyn ugu hayay nabadaynta ceelaf weyn guddigii muddada 60 maalmood u joogay halkaa si gaar ah u salaamayaa ilaahayna ha ka abaalmariyo soo dhawayntani saan sheegay annagu kaliya fiican ma lihin xukuumad ahaanna ma lihin waxaa la cid kasta oo ka qayb qaadatay gaar ahaan dadweynaha ceelaf weyn gaar ahaan labada beelood oo si karaamo leh u aqbalay nabadayntii guddida iyo dawladduba iyo ummadda Soomaaliyeed ay aad u go'aamiyeen inay dhammaato aad iyo aad baan labada beelood oo aan u salaamayo boqorradooda yajiif caqiladaba aad iyo aad baan u salaamayaa dadkii mashruuca qaramaynta cid kasta oo ka qayb qaadatay dawladda meel kastoo la joogo dal iyo dibadba waxaan leeyahay jazaakumullah khayr dhowr qof baan xusayaa suldaan Siciid waan u bixiyey suldaanka qaramaynta ilaahay ka abaalmariyo diihanidii uu muujiyey waxaa jiray dad badan oo aan markii hore qorshaha ku jirin waan ka xusayaa laba nin oo la yidhaah aadan iyo cabdirasaaq naanaysay leeyahay ku caan yihiin masar biinle iyo miishaarta iyaguna waxay ka qaateen qayb weyn oo la xaabay ilaahay ka abaalmariyo ummadda Somaliland meel kastay joogaan waxaan xasuusinayaa dawladda cusub ee muddada yar shaqaynaysay xidhaalaheedu waxa weeyaan wadajir iyo waxqabad wadajirkii waa aragnaa waa taa nabadii ceelaf weyn inoo xidhantay waxqabadka waxaa ka markhaatiya shalay anoo berbere jooga waxaan tegey waan soo eegay mashruuc wakaaladda biyaha ay waday oo ah xoojinta iyo in biyaha berbera la xoojiyo mashruuca madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa furay oo dhagax dhigay muddo bil ka yar ka hor markuu yimid berbera ama shalay waxaan u taagnaa isagoo gabagaba ah oo maalmo yar 2-3 maalmood ku dhamaanaya waxay muujinaysaa waxqabadka cid kasta waxaan leenahay ummadda Somaliland wadajirka gamaha isqabsato waxay qabsato baa u qabsoomaya waxay qabsato baa u qabsoomaya waxaana koow ka midnimadeeda inaan gacanta isqabsano oo aan midowno oo aan ku talagalno ummadda Somaliland inay dhageyna sugaso cid kasta oo darisa nabad baan ugu baaqanaa sidii madaxweynuhu hore ugu baaqay gobolna waan dhiganaa meel kasta oo munaasib ay ku tahay waana naga daacad cid kastana waxaan leenahay war nabaddu waa qaali nabadda wax lagu noqonaaye colaad cidina waxba kama dheefto xawaalaha ku bata ilaahay hayna waafajiyo wixii qayb ku jiro cid kastoo halkan maanta timid caada timidayna waanu mahadnaqayaa waxa weeye annagu waajib qaran baanu gudananay laa shukra cala alwaajib laakiin cid kasta oo ka qayb qaadatay ciddii ka qayb qaadatay waa jiraan markii hore dad lahaa suurto geli maayaan maanta idinkuna farxa ciddii ka qayb qaadatay ee niyada kaga jirtayna hadda maashaada Somaliland meel kastay joogaan ilaahay waxaan ka baryanaa inuu inaga dhigo inuu horumarka inoo sahlo ilaahay cirkaa inoo imaanayo furayna ilaahay inoo imaanayo dhulka nabad cirka arsaaqad iyo madar idinkana dhammaantiin dawladda wasiirada maayarka warasaabka gobolka dadweynaha haweenka sharafta leh dhammaantiin salaadiinta waan u salaamayo suldaanka guud ee Somaliland Suldaan Daawud iyo Suldaan Axmed وبارشي ستة halkan imiga ugu qaabilay iyo salaadiinta kalaba dhammaantiin dadweynaha dawladda cid kasta yihiin agaasima haday yihiin haday wasiir yihiin haday maareeyay yihiin maayarka magaalada gudoomiyaha gobolka ciidamada qalabka sida
وجنرال نمعان أن كنت شنشرني أو مركز أو إحنا غير أتكلم با أن نوريشري كمان جنرالي أو خدمة أو كوكيل عيدما القلب سيد مانتود هذه أربعة ربما هذا هذه أربعة سلامية اسمها هذا أديسة هي كرتيسو اسمها هذه ويبتشوي بوسط سومالي لان عيدما سومالي لان waxaan leeyahay alla soo dhaweeyo janaanka ama la shaqeeyo dhammaantiin aad iyo aad baan salaadiinta cuqaasha iyo haweenka iyo dawladaba dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamaya waxaad kulul salaamu calaykum waraxmatullaahi waa xasan maxamed muuse iyo cawil cabdi kaahin telefishinka qaranka Soomaaliland bariga caasimadda Hargeysa.